loogama ahe ayaan darada maanta Soomaaliya ka taagan shacabku muugaysan waxa ka mas'uula siyaasiga iyo mutacallimka waa labadii indhaha u noqon lahaa ummadan midayn lahaa in ay wada dulman yihiin u sheegi lahaa inay wax ka wada maqan yihiin u sheegi lahaa cadow qura inay leeyihiin u sheegi lahaa labadii ay ummadi kaga bixi jirtay sida caadada looga bartay taariikhda kaga bixi jirtay dhibaatada ay ku guuri jirtay adeegsan jirtay labadii baaba malikul mawt ku noqday sida taariikhdu hadhowto ay qori doonto garashadu haday waxaan soo galeynaa bal hadda ninka keli taliska la yiraahdo ama dictatorka inuu naqaano sifooyinkiisa oo aad uga muuqday arrimaha aan ka sheekaynayo halganka dhexdiisa garashadu haday ruux la tahay suu garanayo garaadkiisu suu qabo hadii loola garan waayo gardaru u qaataa ninkii yiri garaadkiisa xaajadu markay gobooda iyo gowda culus joogto keligii ninka shaantay uu gola ka fuula adiga waxa lagu yaqaanaa ninka keli taliska ah maalinta arintu halka ugu culus ugu halisaysan marayso ee ay ahayd inta la isu yimaado in la faaqido oo la faguro oo lagu guulo oo lagu dhaxo oo lagu xiqo oo lagu daalo ayaa saa loo soo fadhiisanay marka soo waxba hadlina soo arinta tan iyo ka hadalkeedii xalkeeda ma aha sida gola ka fuulka waxa la yiraahdaa waa adigoo imika xaashi halka iska fadhiya leedo waxa lagu xukumay inaad imika gabay tiriso aad imika alifto dabadeedna waxa ka soo dhiiqay uu yiraahdaa waa waxaan nuxur yeelanay de waa nin cunaa la qabtay ama sida yeeliyo wax waliba ku talagal bay ku qabsoomaane waxa weeyaan kalitaliska waxa lagu yaqaan had iyo goor wuxuu soo jeediyaa talooyin aan laga fakirin oo la shiilin oo la tijaabin oo had iyo goor wixii soo dhigay wuxuu yiraahdaa si fududo ma aragtay hadhowna isbixin weyda magti xaajadu markay gobooda iyo gowda culus joogto keligii nin gaashaantay uu gola ka fuula si fudud buu isaga yiraahdaa talada hadalka uu yiraahdaa gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelaya kalitaliska nin ma ogolan yiraahdo waynu gudboonahay aan iska barbartaago waa inuu nin waliba xagga dambe durbaanada la tumayo iyo waa inuu xagga dambe uu ka maqlayaa laakiin de ma ogola dhinacan cid barbartimaata gadaashiisa baa durbaan laga garaacay labadiisa geesood ma jiro ruux ku gelayaay arrin lama guule ee warku gura yiraahday dadka wuxuu u gacan haadiyaa qof iyo gaarkiisa gogol uu ku shaashoonayaa loo gudboon yahay gendi iyo dhukaan buu qabaa cudurro guumeede sida goray fallaagoobay buu gooni joog yahay kol hadduu nin mawd lagu gudbaday tiisa uga guuro xil buu gudoontay ka bayl gudashadiisii seetada nin goostaba wuxuu geystay lala yaabi Afrika waxay ku cuntahay marka ninkii tagay xididayste oo meel walba hadii Ilaahay ka dhigo maaragtay oo hadii Ilaahay ka dhigo lug gashado ay ruuxdiisa iyo gilgilidiisu adkaato markaas bay isku waafaqdaa inuu xun yahay inta uu dhow yahay ama uu wax laga qaban karo ee ay fududahay waxyeelidiisa iyo rididiisa intuba heshiisku ma aho inta iyadu murmaysa midna leeyahay waa wanaagsan midna leeyahay waa xun yahay ayuu jiidanayaa tagayaayo maalin wax ka qabashadiisu ay aad u adag tahay ayaa la isku raacayaa inuu ninku khariban yahay seetada nin goostaba wuxuu geystay lala yaabiye garaayoonki nin hadduu tashiga guuta faran kari ganaanaysto inteenan maanta halkan fadhido oo talo wada leh oo la yiraahdo talada ummadda intiina saa wadaaga bal ka warrama waan yiraahdo haddaba intiinu iska hurda taga oo intii laynoo wada diray anaa ku filane waa mahadsantihiin aniga waniga warsuga nin hadduu tashiga guuta faran kali ganaanaysto garaayoonki iyo shinnida guruuciya dhaadheerta giriyaalayaashiyo fulaha laguma guuraanka gumarta iyo maajeenta iyo geedxunka iyo tuuga gungunaafka iyo maarta iyo gocorka aan quudhin kuninoo guraangura hadduu goob isugu keeno guufkiiyo haddii hooda iyo giniga loo qaybsho dadka kale intii gudan haddii gararka loo jiido gubaabadeedii haddii loogu godadleeyo hadallada galoofta ah haddii loogu malagaaxsho guriya noqoshadeedii haddii lagu gawaan raacsho gabaldaye sidiisii hadday laba gardaymooto shimbiraha gabraatiya hadday galow wax weydiiso kol hadday galaydh soo kallahay laabta uga guuxdo garbaraar cadhaysanay hadduu gooyo taladeeda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin
waxaa lagu yaqaanaa kelitaliska ummadda markuu dhex galo ishuu saa u mariyaado inta aan hadalkiisa waxba ka soo celinin inta markuu hadlayo hoos wax u eegaysa inta ama hunguri ama kursi ama magac u xilanaysa darajo intaasunbuu xilka u dhiibtaa intaasuu urursadaa dabadeedna inta wax garatana xadhiguun baa loo jeedaa intaasubaa daba yaacda uun xaqiiqa iyo wax dhacay oo maaragtay dee jiroo runo aan arkay baa ilaa maxamed siyaad barre ka shalay jirana uu gabaygu ku saabsan yahay mid maanta jirana uu ku saabsan yahay yani waxa weeyaan sifu ma ficilun buu gabaygu ka hadlayaa qof hebel la yidhaahdo ka hadli waa ficilkaa wixii la yimaado unbuu ayuu ku saabsan yahay dabadeedna intaa markuu sameeyo dadka marba intuu shiriyaa unbuu si yaroo fudud wax ugu sheegayaa waayo wuxuu yaqaanaa goldalooladeeda oo si yaroo fudud buu u qancinaya wuxuu leeyahay oo ma ogtihiin sidaa iyo sidaas baynu samaynaynaa beritoyna haddii laakiin halkaa ka dusaynaa dabeetana halkii baynu gelayna dabeetana waa khalaas berito markay beenowdana wuxuu leeyahay waan yeeli lahaay sow hebel iyo hebel iyo hebel sow kuwani ima haystaan faraqa iyo dacalada iyo dhinacoo kama aan dhaqaaqi waayin maalinba shanta uu isiraado waxbay karteen ayuunbuu dadka ku reebaya dadkiina kuwii bay ku jeesanayaan ilaa wuu garanayaa inay ku jeesanayaanu iyagu ma qiimayn karaan yaa qaldan iyo xaggu qaladku ka jiraan intaa la isku jeedaabuu isagiina maaragtay ayuu dhaqaaqayaa guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin oo la isweydiin kara wax laga geeyada bixin maxay ahayd geeyada bixin waxa la yidhaha waxaa jira ceel la odhan jiray waxaa jira ceel la yidhahdo bixin bixinadu weliba way badan yihiin kay tahay anigu qudhaydu ma aqaano laakiin waxaan uun maqli jiray geeya ceelkaa bixin joogi jirtay baa la yidhi waa la yimaadaa waa laga cabbaa geeyadii baad meesha darkii bay ceelkii bay dul joogtaa waa laga tagaa kalka dambaa la soo noqdaa waa geeyadii oo halkii iska joogta haddana waa la tagaa waa la soo noqdaa berigaa farduu qiimay lahaynoo waa lagu dagaalgeli jiray oo dee may maqnaan jirinoo nin kalihii waxay ugu jiri jirtay dee waxay u joogi jirtay guriga ama meelaan ka fogeyn uun ka warhayn jiray markaas dabadeetna markii kal kasta loogu yimaado geeyadii oo halkii iska joogta halhays baa soo baxay la odhanayo war geeyadu sooma cabto oo ceelka kama tagto oo colaad laguma tibo yacni ninkii lahaa war xitaa miyaanay colaadi ka dhicin ciddii lahayd miyaanay dagaal gelinoo aanu dabeeto u baahan geeyadan inuu maaragtay dagaalka u fuulo dabadeedna waxaa ummaddii unbaa la leeyahay mar haddii taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo taasi ku dhacdo sidaa loo galo ay iyadu maaragtay qiimayn kari weydo xaaladda guulkeedu dheeraa sidii geeyadii bixin weligeed fal baa loo guntaa yani uun iminkana waa dhaliishii dadka dhaliil maaha runtii waa halka ay taagan tahay yani aqoon iyo aragti iyo siyaasad iyo mid walba ummaddu dee caawa kuma dhaliila halkay joogto waa garaadkeeda waxa weeyaan dee dee waa si yar baa loo khiyaamaynayaao kuma dhaliilo oo ila cidina waxba uma sheegin intii wax u sheegi lahayd waa ninkii ka sheekaynayay oo waa intaa indhaha ka ridaysay laakiin waa sidan dabeecaddeedu weligeed fal baa loo guntaa lagu guhaamayey marun bay gadoodaa siday gees loo-aa tahaye galab xiisaheedaa wakhtigu kaga gaboobaayey ninuunbaa ku guuree iyada geediwo weliye marka wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobtaaye marka uu galaabuu iyaga guba yidhaahdaaye markay raar guraysaba ninbay gudub tidhaahdaaye waa sidaasoo waxaa looga bartay had iyo goor innaga ayaa guusheenna waxay iyo guuldarradeenna meel qaladay saaran tahay waxaa dhacay hebel baxaashi baa ka mas-uula laakiin haddii uu abubakar yimaado waxaas dhacay waxaa daweyn kara abubakar uu yimaado hadda waxaa la doonayaa waa waajib gobannimo moogta dabeetna xaashi baa la riixayaa marka uu dee dhammayste ee uu dhaawaca geysto abubakar baa la keenaya waxa abubakarna markaasaa la odhanayaa dee waa kuwaas mar haddii abubakar yimi kun fa yakuun imanka haddii ilaahay ka dhigo maaragta markaasana waliba intuu barkintiisa qaato seexanaya oo abubakar baa dadka guriga geynayo ku filan hawshii ummaddu laga sugayey waa dee dabeedna markaasuu isagiina isu qaadanaya markaasuu waay isagoo isagu dhisu dee inuu isbeeniyo ma doonayo misle dadka kuwa saasuu ku arkaan malaa adaan isoqoonne waniyo malaa ninkaasaa tahay oo maaragta markaasuu isaguna wax culus aanu qaadi karin buur culus iyo mas-uuliyad culus oo aanu qaadi karin buu markaa waad arkaysa inuu la liito oo la gurgura hadda markaas iska dhigaya markaad eegto iska dhigaya sidii nin la ordaya ma og tahay oo isaga waxaa ku ceeba inuu yidhahdo war waxaan anigu keligay kama soo bixi kare ee maaragtay u yeedha maaragtay
oo isaguna wuxuu isleeyaan maaragtay marka wiil ku guro naarta iyo godadka Yahuuda ayay kii jannada geeyeen marka mid cadaabo ayay warkani waa khayr laawe mid jannada toos inoo geeyay janno toos loo tagaana dee ma jirto ilaa aad cadaabta sii marto jannadu waxay ka dambaysaa hadiyo goor cadaabta moogta marka qoladani waxay ku leedahay waxaan doonayaa inaan duulo oo aanu jannadii toos ugu degno marka nin nala duula yaan u baahannahay kana la heli maayo dabeetana xaasha wiiman waxa jannada ma geynaysaa haa buu odhanaya marka salaam buu ka dhiganaya intuu iyagii saa isu dul saaro ayuu jannadii isugu ku boodaya markaas uu odhanaya inta kale oo idinka marka wiil ku guro naarta iyo godadka Yahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasho goobtaaye marka uu galaabo iyaga guba yiraahdaaye markay raar guraysaba nibay gudub tiraahdaye gabna uu gubi way qoosisaa gaawe Cumarow garabdaar ninkii lagu buqraa geedad tarawaab mar haddii ay dhacdo nin aan waxba la iman haddii la iska caleema saaro ilaa dadka waxa wax lagu siiyaa wuxuu la yimi oo leeyahay xalay baan riyoodayo ninka guusheenu ku jirta waa xaashi dabeeto aroortii markaa tirada hawshi ka waran isagu riyaabo kula baydhaya badee waajib ka hadli maayo wuxuu isu qaadanayaa uu weli ilaa waa nin xalayto loo riyaal meesha ku yimi waa ta ka dhacda arrimo dee maamul iyo siyaasad iyo hawl u baahan ayaa la odhanayaa wallahi haddii hebel iman lahaa inaanay waxaas haddii ilaahay ka dhigo maaragtay dabeetana isagii baa imanayo ilaa sidani nolosha kama suurowdee markaasoo dabeedna ayaan darradii imanaysaado maaragtay saasuu leeyahay garabdaar ninkii lagu buqraa geedad tarawaab meela loo diran iyo carshi iyo waxbuu ka sheekaynayaa iyo riyo iyo dee hawl cid kale qaabilsan tahay garabdaar ninkii lagu buqraa geedad tarawaabi garmaqaatayaashiiyo dadka beera ruux guran halkan beydkaas baan doonayaa inaan sheego ummad yahay inaga dictatorka abuura dictatorka iyo kalitaliska inaga samayna markaynu samayno ee qalabayno ee hubayno ee u dhamayno ee uu dabeedna isagoo galka seefta kala baxo ee wax gumaaday cagta wax mariyo aynu hadhow tacala Allah soo arkin waa loo sacabinayaa waa loo mashxaradayaa iyadoo uu qaldan yahay baa lagu raacayaa iyadoo uu qaldan yahay baa la difaacayaa iyadoo uu qaldan yahay baa loo hiilinayaa markaasuu marka wax walba yiraahdo cid tiraahdo ma uu arki waayo ayuu isaguna markaa waxaanu ahayn ayuu isu qaadanaya qofka haddii aanad xariq qabtaadeen qofka jirin ilaa hada mar walba sax baa tahay isaga qudhiisu xaqiiqadiisii uu ka tegayaa wuxuu odhanayaa uu soconayaa marka hal la ogaado dictatorka ninka la yiraahdo hadii bani aadamka abuura moogtay inaga qalabayna inaga gacan ku siina inuu xarkaha goosto garmaqaatayaashiyo dadka beera ruux gurane gambo niman la soo bixin haddii guula lagu waabo markuu dhaawac geystaba haddii loo gargarateeyo isagoo canaan lagu gudbiyo gaaran filanaya giblo iyo haddii sacaba lulan loogu gola xaadho keligii inuu guurti yahay maalintaa gunud isagoo dhaawacii ugu weynaa geystay oo isla talo maanta maxaa lagu odhan doonaa ma intaasaa lagu jari ma maxkamad baa lagu taagi miyaa lagu casili oo yimaado mise waaba la sacabinaya walaa xawla walaa quwata illaa billah markaasoo war waxani waa ari wax meesha wax garanayaba ilaa haday wax garanayaan way ku qaban lahaayeen ilaa way arkayaan inaad khaldan tahay yani sidoo isagu uu fakaraya waa caynka boogti gibla iyo haddii sacabalula loogu gola xaadho keligii inuu guurti yahay inuu keligii wax bani aadam oo jira inuu isagu keligii yahay oo inta kale aanay macno lahayn ilaa hadday macno leedahay uun macnay way odhan lahayd oo qaldan tahay keligii inuu guurti yahay maalintaa gunudii marka uu gadaan gacan togaaleeyo ayuunbuu waxaan ganac lahayn sii gorgoriya marka leedo madaxweynaad ee uu kii xaashiyo madaxweyne ku-xigeenka ku darsado ee kii riiraasho wasiira ku darsado ee kii gaariyo oo agaasimo ama director baa mala halkan laga yiraahdaa oo ku darsado ee la oran waayo kaagii ku ekow oo kuwan kale iska daa maalinta dambe uu ku oranayaa baabuurka baxaya amarkiisa ee xaabada doonaya waa in aniga la iga fasax qaataa يا بني آدم كحد عليا معناه هو حويا ديكتاتور كما جرو مركا أو جدان قعدت تقالي بين البركو فرقليو اللي قبل وايو أيوم بو وحن جنا على هين سي جرجرياي
kol hadduu tallaabada gurguro gaatan iyo boodo dhaxaa gadaal la isla tebi wiil galbaday jeer mar hadduu tallaabada gurguro oo inta la isku jeedo ama la hurdo oo maaragtay orodka hoosta ka xado maruu dhamcay oo tagay oo jitay buu baa la oranay war ninkii horta mee balad basheen toojaba waxaa lagu godlaasay u gaar tahay gurranidu mar waa dhalasho iyo gacan baqaabkeed marna waa calool garac sida iyo xaalku soo gala kol haddaanay maankaaga gadin talana kaa geynin gurracnaanta qiil lagu saxoo loo gudbaa jira nin hadduu go'aanka iyo sharciga gowrac ugu jiido hadba goondhabaaliyo hadduu goodi furan keeno gacalnimo ha loo yidhi hadduu gubasho sii beero guudaan haddii uu ku liqo ereyga geedaysan runta wuxuu u guulguulayaa way gundheer tahay goldaloolo qura maaha iyo goonidaa taliye gedaan loo filayn baa jirtaiyo geelladaaq kale ninkanoo aynu caleemasaaradoo doorannay laakiin aynu u naqaano inuu gurracan yahay nin mar haddii uu u dhashay gurracnaanta oo aanay wuxuu hooseeyo kale jirin si loo saxo iyo si loola socdo lama waayo waayo waad ku talagelaysa waxaad xaashi ana aqaano wuxuu doonayaa in sidaa iyo sidaa loola hadlo sidaa iyo sidaa la yeelo sidaasaa loo wadaa sidaasaa wax loo dhacsiiyaa yani waa la yaqaanaa hal baaba Soomaalidu tiri toojaba nin lehi toojo nin lehi toojo nin lehi baa toojo yani toojo nin lehi baa tabu ku maalo yani ninkaas baa u yaqaan hal baa laga maarbo hal baa maamaada ku jirta oranaysa hadday tahay toojo tahay oo ay cararto aanay maaragtay dee aanay ogolayn in la maalo nin kale baa yaqaana sida loo liso wuxuu u raadinayaa si uu ku maalo isagu baa markaa helaya siduu ku maalana waana la yaqaan waanu maalaa qofkuna halkama liito weligiiba ha gurraacnaado haddii aanay wax u sheelayn u qarsoonayn si loola socdo lama waayo laakiin ayaan darradu waxay ka dhacaysaa marka gurraacnaantiisu aanay dhalasho ahayn laakiin xeelado u hooseeya oo aanad adigu la ogeyn ay jiraan aanu daacad ka ahayn arrintan uu wado iyo xilkan uu hayo isagoo runta arkayo oo danta arkayo uu markaad hadasho adigoo balhadaraaleyga oo xaasha walaal waxaan doonay cadho ka sii qaado waayo dee waa halkan inagu ereygan reer magaalka ku nool kiisiska waalka wuu garanayaa danta laakiin wuu isdhaga maraya mogti marka nin hadduu falkaa ku dhaqmo maaha waxaan wax kale uma jeedo oo gurracnaantii u dhashay way ka weyn tahay oo baroorta orgiga ka weyne arrin u hoosaysa oo aan weli la garan ayaa jirta dee xaasho in marka dooranoo la yidhahdo waa xaashow qolo kale ku tirada makhaayadda soo xidh oo dabeetna yidhahdo waan soo xidhaya aynu xaashow makhaayadii aynu wadno maxaad ku hadlaysaa buu odhanaya hadda anagu heshiis baanu ku nahay inaan markii hore waxaan ku heshiisanay in la wado laakiin qolo kalaa ku tiri soo xidh dabeedna anu markaa de hawshaan isku ogeyn aynu wadno wuxuu dhahay nagada waxaad ku hadlaysaa wadi mayna waynu xidhayna yani wax u gaarun baa jira weeye markaas waa tilay ka dhigo talo u go-an isaga u goonayaan adigu la wadaagin ayaa jirta hadba geedismaris baa u hadha guuldad leeyahay miyaan geedi baabo warladu gelina waayeyni gole miigan geed sheegan iyo garangar muunaysan gudban iyo cod laba geesa iyo guurti kala soorta garnaqsiga mudicigoo tashiga gooni uga showray geda labe madaacalay hadloo dhaabadba aan geystay kala gurasho meerti iyo rogaal la isla guurguuray maahmaaho wada guurah iyo gabayo raacraacay guddoon dhacay hubaal iyo go'aan la ysku gacan qaaday shan godoo murtidu leedahay iyo gororka suugaanta gedda hadalka loo roga gasho iyo marin gobaadeed gobannimadu waa libin ku taxan geedi nololeed waa gumaro aadmigu hantiyo guusha ugu weyn gedun buu ka leeyahay khalqigu maalintuu gado guddoonkeedu waa faral siyaa loo gafaajirine marka uu gabaabsiyo xilliga laga guweynaaday ayuunbaa ninkii gudan karaa dhan ugu guura gobannimadu wax kale maaha waxa weeyaan waa geedi ka mid ah geediyaasha nolosha oo marka hankuna ka weynaado baahiduna ay ka badato habkii markii hore loo dhaqnaa ama kooxo ama qabiilo ama kuwa ka dambeeya iyo gumaysiga marka ay noloshu sidaa isku bixin weydo ee qofkuna ka han weynaadee ka garaad sarreeyo habkaa nololeed ayuunbaa kan kale ee gobannimada ah loo guuraa dabadeedna
maalinta loo guuray ee lagu dagaalamay ee nafta loo huro dee bani aadamku ujeedu kale inuu ku dhaqmo u raadinaya ma caabudayo moogti mana aha haddii ilaahay ka dhigo sawir intuu soo dhigo sidaa u daawanayo inuu ku dararaya ujeedu gadashadeeda iyo inuu wixii ay u baahan tahay ku iibiyo ujeedu kale haddii ujeedada ku bixiyo